السلام عليكم سوداء هدي أجنال كعصب تاعي مجا دكتور جابر maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno ciwaan muhiim ah oo runtii aad iyo aad u quseeyo ardayda sanadkan soo qalin jebisay dugsiga sare rabana inay ku biiraan jaamacad qaasatan rabana inay bartaan caafimaadka ama ku biiraan bahda caafimaadka runtii marka go'aansatid inaad baratid caafimaad waxyaabo badan ayaa maskaxda ku soo dhici doono marka dad badan la tashatidna waxyaabo badan ay ku sheegi doonaan qof walbana wuxuu ku dhihi doonaa waxaas baro kan baro so inta aadan go'aansan waxa bar lahayd maanta waxa kula wadaagi doonaa kuliyad kasto oo caafimaad ka mid ah iyo muhiimada ay leedahay iyo markaa baratid waxyaabaha ka faa'iideysid ayaan kula wadaagi doonaa lambarka koowaad waxaan ka bilaabi doonaa nursingka okay nursingka af Soomaaliya waxa loo yaqaanaa kalkaaliye ama kalkaalisinimo runtii inta la barto ama inta sano ee la barto waa 4 sano nursing inta la barto wuxuuna ku jiraa waxyaabaha inta badan caafimaadka dadka ugu badan ay bartaan kuliyada ugu badan ee la barto ay ku jiraa so bukaanka markuu isbitaalka imaado qofka ugu horeeya ee la tacaamuli doono wuxuu noqon doonaa qof nursing ah sababtoo ah qofka ugu horeeya ee cannulation u sameeyo doono wuxuu noqon doonaa qof nursing ah qofka ugu horeeya ee bukaanka maxaa la yiraahdaa xaaladiisa arki doono wuxuu noqon doonaa qof nursing ah ma noqon doono qof dhakhtar ah so marka nursingka wuxuu xog badan ka ogaan karaa ama maxaa la yiraahdaa macluumaad badan ka ogaan doonaa bukaanka wuxuuna u dhawaan doonaa bukaanka in uu maxaa la yiraahdaa xaaladiisa caafimaadkiisa waxyaabihiisa ku soo koro inuu la socdo sidoo kale muhiimadu leeyahay waxa waa qofka bukaanka si doona daawooyinka dhakhtarka markuu imaado bukaanka daawooyin ayuu qori doonaa soo qofka bukaanka daawooyinka qasi doono daawooyinka bukaanka si doono bukaanka la sheekaysan doono wuxuu ahaa doonaa qof nursing ah hadaba marka qofka nurse-ka runtii maxaa la yiraahdaa mar qaarkood wuxuu ka fiican yahay dhakhtar aanan experienced ahayn sababtoo ah qofka nursing-ka ah markuu experienced noqdo ama intaasoo san markuu shaqeynayo wuxuu ogaan karaa ama maxaa la yiraahdaa diagnose ku sameyn karaa xataa mar qaarkood bukaan kasto imaanayo iyo xaaladiisa qaabkay tahay inay daran tahay in kale aad ayuu maxaa la yiraahdaa go'aan u qaadan karaa so qofka labaad ee marka waa maxaa la yiraahdaa go'aan qaato dhakhtarka haduusan meesha joogin qofkan qaadan karo go'aan waa nursing-ka because wuxuu og yahay maxaa la yiraahdaa daawooyinka bukaanada la siiyo maxaa la yiraahdaa xaaladooda waxyaabo kasto uu maxaa la yiraahdaa ogaan karaa waa haduu experienced yahay sidoo kale wuxuu maxaa la yiraahdaa u dhaxeeya ama xiriir dhow u leeyahay dhakhtarka okay waa qofka inta badan maxaa la yiraahdaa dhakhtarka caawin doono waa qofka inta badan isbitaalka markii la joogo ugu shaqada badan nursing shaqooyinkiisa aad ayuu fara badan yahay ma aha shaqo yar so dhibaatada uu leeyahay marka nursing qofka barta waxa kamid ah waa qof maxaa la yiraahdaa maanta dhan shaqeynayo shaqadiisa aad ayuu badan yahay less costina waa okay dhaqaalaha markii la fiiriyo nursing-ka waa iska yar dhaqaalihi so hadii loo imaado marka qaybta kale oo ah laboratory-ga okay laboratory-ga ama maxaa la yiraahdaa shaybaarka af Soomaaliga waxa lagu yiraahdo asin wuxuu qayb ka mid yahay ama qayb ka yahay bahda caafimaadka ugu muhiimsan okay qofka laboratory-ga wuxuu baran doonaa asina sidoo kale jaamacada 4 sano ayuu baran doonaa laboratory-ga so waxyaabo badan ayuu daraasay doonaa faa'iido ay leedahay xitaa laboratory-ga maxaa la yiraahdaa waa qofka u dhow dhakhtarka ama qofka maxaa la yiraahdaa dhakhtarka ka caawin karo inuu diagnose gaaro okay laabkaaga hadii uu saxsan yahay ama qofka laabka markuu bartay haduu si fiican u yaqaan laabka resultiyada uu soo saaray ama baaritaanada uu soo saaray uu fiican yahay wuxuu qayb ka qaadan doonaa bukaanada inay caafimaadaan ama bukaanada in diagnose-kooda la saxo ay qayb ka qaadan doonaa so maxaa la yiraahdaa hadii laakiin laboratory qofka bartay uusan maxaa la yiraahdaa laabkiisa uusan fiicnayn waxay noqon doontaa dhakhtarka inuu qaladaad badan sameeyo so waa qofka ka qayb qaadanayo inuu dhakhtarka go'aan sax qaato waa qofka laboratory barto so laboratory noocyo badan ayuu qofka baran doonaa markii shaybaarka la joogo hematology biochemistry analysis of stools iyo qaybo badan ay jiro so marka faa'iido uu leeyahay intaas aad ugu muhiimsan qaybta saddexaad waa asina ah midwifery-ga okay midwifery-ga runtii af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa umuliso okay inta la barto asiga waa 4 sano ama ilaa 3 sano jaamacadaha qaar 3 sano ay bixiyaan so umulisinimada marka runtii waa muhiim in maxaa la yiraahdaa la barto qaasatan umulisinimada waxa aad iyo aad u barto gabdhaha ay aad iyo aad u barto umulisinimada marka faa'iido ay leedahay maxaa kamid ah faa'iido ay leedahay kamid ah in gabadha ay caawiso ama maxaa la yiraahdaa ay qayb ka noqoto in maxaa la yiraahdaa ilmo badan ee adduunka soo biiraan ilmo badan ay u sahasho in maxaa la yiraahdaa ay banaanka imaadaan in maxaa la yiraahdaa hooyooyin badan la caawiyo waxa u gudbeynaa markaan public health okay qaybta afraad waa public health muxuu yahay public health runtii waa maxaa la yiraahdaa qayb kamid ah caafimaadka wuxuu qayb ka qaataa in maxaa la yiraahdaa cudurro badan la dariso in laga hortago cudurro qaar
in nolosha la dheereeyo ay yiraahdaan gaalada sida ay buwaagtooda ku qoran. maxaa la yiraahdaa marka public health-ga qofka barto wuxuu noqon doonaa inta badan qof aad researcher u ah. public health inta badan wuxuu daraasay waxay tahay qofka markuu maxaa la yiraahdaa cudur meel uu ka dilaaco dadka ugu hore ee baaritaan ku sameeyo doona cudurkaas waxay noqon doonaan dad public health ah. inta badanna adduunka dadka inta badan researcherska ama wax badan buwaagta badan qoro waxaa inta badan ay u badan yihiin dadka public health-ga. waxaan u tagaynaa markaan qaybta ugu muhiimsaneed oo maxaa la yiraahdaa ama ugu dambeyso oo la yiraahdo medicine and surgery. okay, medicine and surgery wuxuu qayb ka yahay maxaa la yiraahdaa health ama wax la yiraahdo health medicine ayuu qayb ka mid yahay. so medicine-ka waxyaabaha lagu barto runtii aad ay u fara badan yihiin. qofka medicine-ka wuxuu baran doonaa duration-ka lagu barto waa 6 sano. waxyaabaha aad baranaysidna waxay iskugu jiri doonaa wax la yiraahdo basic iyo clinic ay iskugu jiri doonaan. 6daas sano markaad dhameysid kadibna waxaa markaas go'aansan doontaa ama maxaa la yiraahdaa macna baran doontaa wax la yiraahdo specialist ama takhasus. okay, jaamacadda markuu dhameeyo qofka 6 sano medicine-ka uu barto maxaa la yiraahdaa weli ma ahan dhakhtar oo maxaa la yiraahdaa takhasus haysto. wuxuu u baahnaa doonaa inuu takhasus kala diyaariyo si uu maxaa la yiraahdaa u noqdo dhakhtar buuxo. so medicine-ka qofka bartay waxyaabaha ku fiican yahay waxaa ka mid ah wuxuu noqon doonaa dhakhtarka maxaa la yiraahdaa cudurrada guud, wuxuu noqon karaa dhakhtarka habeenka, wuxuu noqon karaa dhakhtarka indhaha, dhakhtarka maqaarka, dhakhtar takhasus meel aada ayuu noqon doonaa. so marka medicine and surgery duration-kiisa 6 sano waaye. costigiisana aad ayuu fara badan yahay. dhibaatada uu leeyahay marka waxay tahay costigiisa aad ayuu fara badan yahay oo waa jaamacadaha inta badan aad ayuu maxaa la yiraahdaa u badan yahay lacagtiisa inta lacag ee lagu dhigto. sidoo kale time-kiisana aad ayuu fara badan yahay. waa labada shay loogu cararo waa. okay, inta badan waxaa arkay dadka qaar oo ku dhahay aniga medicine ma baranayno, medicine ma rabno, oo sababtana ay tahay time-ka ay ugu cararayaan 6daas sano. sidoo kalena ugu cararayaan maxaa la yiraahdaa costigiisu aad u fara badan. laakiin ogaaw medicine-ka muhiim jiddan waaye because medicine-ka laba shay waa markii la baranayo medicine inaad baratid iyo surgery inaad baratid. okay, surgery waa gooni medicine. so medicine and surgery way isla socdaan. so in sababta loo dhahay marka 6 sano waxay tahay medicine waa baran doontaa, surgery waa baran doontaa. 6daas sano markaad dhameysidna medicine-ka aadi doontaa ama waxaa aadi doontaa surgery aadi doontaa. laakiin intaadan go-aan qaadanin kahor waa inaad sameysaa research ama baxthi badan inaad sameysid waxaa baranaysid because jaamacadda markaad bilaabeysid waa marka mustaqbalkaaga aad go-aaminaysid meesha aadaysid waa. so mustaqbalkaaga meesha go-aaminaysid ama meesha aadaysid waa inaad ka fiirsataa. sababta ugu fiirsanaysidna waa waxay tahay inaad sameysaa baxthi badan, research badan, dad badan lala tashataa. okay, decision qaadanin adigoo aanan dad badan la tashanin oo expert ah. so insha Allah video intaas kusoo gabagabay doonaa. nala wadaag xag commenti kulliyada is leedahay, kulliyadaas ayaa kugu haboon ama kulliyadaas ayaan jeclaan lahaa inaad barto. waana mahadsantiin. haddii aad channelka cusub tahayna fadlan ha ilaamin inaad subscribe saartiin. thank you so much guys.